عليكم ورحمة الله وبركاته وبرنامج قار oo lagu talagalnay dadweynaha Soomaaliyeed ee daawada telefishinka Somsad inaan inta badan ugu soo gudbino waxa markaas aanu isleenahay way u xiiso qabaan ama way taagan yihiin barnaamijkan oo ah barnaamij caawa iyo Somsad kaasoo aad ka daawataan telefishinka Somsad xaruntiisa dhexe ee magaalada Birmingham haddii rabbiga awoodda badan caawa barnaamijka iyaga waxa uu noqon doonaa تريو انتي لدورتي مدحوينها دولة فدرالك الصومالية مدني حسن شيخ محمود وحي أسور تقالي إيا وحي آن أسور تقالين مدرس وحلكة هيي إيا شركة لندن كدعي دونا بشان تضبط إيدا هدي ألا يرادو تدك الصوماليات وحا أي كفي ليان أما وحا أغسو بحي دونا ومدى الصوماليات إيا شركة سيساقا قودو بديسة وحا أيين أي كساب سنيهين waan rajeynayno inaan qaadaa dhigi doono haddii aan la yiraahdo barnaamijka caawa waxa igala qayb galaya Saciid Cali Shire oo stuudiyaha ila fadhiya iyo Professor Caraale oo jooga dalka Switzerland oo labadooduba ay aad iyo aad u yihiin dad ugu xeel dheer xagga siyaasadda Soomaaliya wax badan ka og meesha ay wax marayaan barnaamijkan oo sidiisaba alaabo ugu talagalnay dadka inaan uga dharjino ama aan ugu soo bandhigno kolba halka ay marayso danta ama talada Soomaaliyeed bal marka hore waxaan rajeynayaa aan iraahdo taqriir ama barnaamij kooban oo aanu idin soo diyaarinay oo aan rabno inaad marka hore nala daawataan si aad u ogaataan ujeedada iyo nuxurka barnaamijka aanu caawa idinku talagalnay nala daawada wax yar barnaamijkaas isaga waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u guto si daacad ah oo danta dalka dadka iyo diintu ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala wabillahi tawfiiq dadna madaxweyne awguuriyo aku guuriyeynaya waxa ku bilaabmay xilkii madaxweyne bishii September sanadkii 2012 ay ahayd markii Xasan Sheekh Maxamuud uu ku guuleystay inuu noqdo madaxweynihii Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dhanka kaleetana waxa uu nasiib u helay inuu noqdo madaxweynihii ugu horeeyay ee la kowsaday kabicitaanka ay Soomaaliya ka baxday wixii loogu yeeri jiray kumeel gaarka taasoo dhamaantood maamuladii ka horeeyay madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud ay ahaayeen dawladda kumeel gaar ah oo wax badan aan ka fulin karin walow haddana la dhihi karo in ay iyagu ahaayeen kuwii sababta u noqday in dawladda haatan jirta ay ka baxdo kumeel gaarnimada kadib qabashadii shirkii Garowe 1 iyo 2 Muqdisho iyo Galkacyo ay horseed ka ahaayeen dawladii Sheekh Shariif Sheekh Axmed dawlad goboleedka Puntland galmudug iyo UN-ta haddaba muddadii 9 bilood ahayd oo ay jirtay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa la rumaysan yahay in ay dawladani wax weyn ka qabatay dhinaca xiriirka caalamiga ah dawladda federaalka ah waxa u suurta gashay inay dib u soo noolayso xiriirka diblomaasiyadnimo ay Soomaaliya la lahayd caalamka intiisa kale sida in ay safaaradihii dalalka shisheeye ay ku lahaayeen Soomaaliya dib loo furay qaar badan oo kamid ah sidoo kalena ay dawladdu federaalkani ay bilowday inay dib u furto safaarado badan oo ay Soomaaliya caalamka ku lahayd dhanka kalena inkastoo ay Soomaaliya ahayd dal jira oo xurnimadiisa qaatay 1960kii xubinna ka ah qaramada midoobay waxa haddana aafeeyay dhammaan dawladihii kumeel gaarka ah ee Soomaaliya loo soo dhisay aqoonsi la'aan ama dayac fara badan oo kaga yimid caalamka intiisa kale ayna ugu horeyso dawladda Mareykanka oo iyadu u muuqatay inaysan marnaba ku qanacsanayn maamulada Soomaaliya loo dhisay laakiin dawladda federaalka waxay mar kale nasiib u yeelatay inay hesho aqoonsi caalami ah halka maamuladii kumeel gaarka ahaa ee iyada ka horeeyay aysan helin fursadaasi laakiin marka laga hadlayo xaaladaha arrimaha gudaha waxa ay dawladda federaalka ah u muuqataa inay hor yaalaan arrimo aad u culus oo ay ugu horeyso ammaanka iyo soo celinta hanaanka dawladnimo arrintaasi ugu daran ee hadda soo wajahday dawladda federaalka
waa bal sidii ay laysu fahmi lahaa hirgelinta habka federaalka oo ay Soomaaliya qaadatay taasoo muran badan ka taagan yahay. haba ugu horeyso shirka maamul u sameynta Jubbooyinka oo haatan ka socda magaalada Kismaayo kaasoo ay dowladda federaalka Soomaaliya ka muujisay shaki fara badan. horaantii bishii Maarso ayay ahayd markii ugu horeysay oo ay banaanka u soo baxday mowqifka dowladda federaalka Soomaaliya ee ku aadan shirka ka socda Kismaayo kadib waraysi uu bixiyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya una kaga hadlay shirka Kismaayo. 25 Maarso ayuu ra'iisul wasaare Cabdi Faarax Shirdoon Saacid uu ka degay gegida diyaaradaha ee magaalada Kismaayo. muddadii uu joogayna waxa uu la kulmay maamulka kumeel gaarka ah ee Jubbooyinka isagoo u soo bandhigay in shirka loo bedelo dib u heshiisiin lana dhiso maamul kumeel gaar ah oo muddo 6 bilood ah taas oo ay diideen maamulka Kismaayo. intii uu joogay Kismaayo ra'iisul wasaaruhu marnaba ma uusan booqanin hoolkii shirka ka socday halkaas ay joogeen odayaal dhaqameed gaaraya ilaa 800 oo oday. 31 Maarso waxa uu ra'iisul wasaare Saacid ka degay magaalada Garbaharey isagoo halkaasna ka dhisay maamul kumeel gaar ah oo uu gudoomiye uga dhigay Maxamed Cabdi Kaliil oo isagu ahaa gudoomiye ku-xigeenkii gobolka halka uu gudoomiyihii gobolka Xuseen Sheekh Cabdi Ismaaciil Farey uu kamid ahaa ka qaybgalayaashii shirka Kismaayo isla markaana uu ku sugnaa magaalada Kismaayo. falkaas ayaa dad badani u arkeen mid abuurayo in la sii kala fogaado. arrintii Jubbooyinka ayaa noqotay shayga loogu hadalhayn badan yahay isla markaana keentay is-aamin darro iyo shaki fara badan ay dadka qaarkiis ka muujiyeen dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo dowladda federaalka Soomaaliyana ay sheeganayso inuu yahay xaq iyada ay leedahay inay dhisto maamulada Soomaaliya. 2 bishan May khudbad uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxmuud ka jeediyay baarlamaanka Soomaaliya ayuu ku sheegay in shirka Kismaayo loo bedelo shir dib u heshiisiin ah oo aan la isku dayin in maamul loo dhiso. hadaladiisana waxa kamid ahaa waxaan la socotaan in Kismaayo uu ka socdo shir la doonayo in lagu dhiso nidaam federaal ah. ra'yigaasi in nidaam federaal ah iyo nidaamyo federaal ah dowlado ay ka dhashaan sida dastuurka tilmaamaya dalka waa arrin muhiim ah la aqbalsan yahay cid diidan ama diidi kartaane aanay jirin. waxaan ka codsannay dadka ku shirsan Kismaayo inay shirka socdo uu noqdo mid dib u heshiisiin ah oo dhayo boogahaas iyo murugadaas xanuunka leh si loogu sii gogol xaaro wax la wada leeyahay oo raali laga wada leeyahay. Cabdinaasir Maax Seeraar oo ah madaxa arrimaha bulshada iyo afayeenka guddiga maamulka kumeel gaarka Jubbooyinka ayaa waraysi uu la yeeshay TV-ga Somsad isaguna sheegay inaysan dowladda federaalka Soomaaliya xaq u lahayn dhisidda maamulada dastuurkuna sidaas uu qabo. waxa uu yiri mar haddii uu leeyahay Seeraar madaxweynihii dib u heshiisiin bay u baahan tahay gobolada Jubbooyinka soo arrin fiican oo la soo dhaweeyo ma aha in dib u heshiisiin la sameeyo maamulkana dib laga sameeyo. وأرين عن دبلشيسينتو لكن دبلشيسينتو هاي الصومالي أردن باوباهن باوباهن في حمر في قولة كونفريد أردن وحتى لو حوي دبلشيسينتو ودوا مركز دبلشيسين بعض الصوماليات هي مجتمع صومالي وأوباهن يعني لكن هذا شركاني ومض الصوماليات حوي واحد مدفر بدني كشقينية مال فرب بدني كوبحي نفط بدني يوصل لمطي مركز waxaway dib u heshiisiin olaad hadda halkan ma taalo ummadda Soomaaliya halkan degan waa heshiis dib ma dhex yaallo cadawduna waa mid himilada maanta ay leeyihiin waxaway ay baarkaan maslaxo in maamul ay iyagu leeyihiin ay samaystaan waxaan aaminsanahay haddii la yidhaahdo waa dib u heshiisiin shirkan in ummadda Soomaaliya halkan taagan ay u arkayaan macno kale oo khilaaf iyo cadaawad ay ka dhalanayso iyo rabitaankoodii oo la diiday inay u arkayaan ay u arkeen dib u heshiisiin sax inay tahay ay u arkayaan wax qaldan oo ayaga lagu burburinayo inay tahay sababtoo ah shirkani muddo socday hanti fara badan baa ku baxday boqolaal ruux baa la iskugu keenay
waxa ay doonayeenna wuxuu ahaa inay maamul samaystaan way samaysteen calam bay samaysteen gaaltarkooda la ansixiyey in la yidhahda marka waxa weye hadda dib heshiisiin ha laga dhigo cidda la heshiisiinayo waa cid dhib buu dhex yaalo halkan dhib ma yaalo dadkani waa heshiis gacmaha haystaan waa dad barwaaqaysan waxa marka laga heshiisiinaya waxa weeyaan waa wax aan jirin weeye waxa weeyaan waxa ay doonayaan in loo yeelo keliya ayuu heshiis arrinta maamul samaynta jubbooyinka waxaa kaloo ay abuurtay in dowladda federaalka Soomaaliya ay xoogeeda iyo caqligeeda isugu geyso bal sidii ay gacantooda ugu soo noqon lahaayeen maamul samaynta jubbooyinka iyo isbuucyadii u dambeysay ay dowladda federaalka Soomaaliya la qaadatay shirar kala duwan dowladaha gobolka iyo sida Kenya iyo Ethiopia iyadoo sidoo kale shirkii ugu dambeeyay urur goboleedka IGAD ee 3 May lagu soo gabagabeeyay Addis Ababa kaasoo ay codsatay dowladda federaalka ujeedadiisuna uu ahaa sidii dowladda federaalka loogu soo wareejin lahaa maareynta shirka jubbooyinka hase ahaatee qodobadii shirkaas ka soo baxay ayaa kooda ugu muhiimsan waxa uu ahaa in IGAD ay u saartay shirkaasi guddi kala socda urur goboleedka IGAD kaas oo xaqiiqo raadis ah isla markaana tagi doona magaalada Kismaayo dhanka kaleeto waxaa mugdi soo kala galay dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Puntland kadib booqashadii madaxweyne Xasan Sheekh Maxmuud uu ku tagay Puntland safarkaas oo macnooyin badan xambaarsanaa ayaa haddana waxaa la dhihi karaa in ujeedadiisa ugu weyn uu ahaa isu soo dhaweynta dowladda federaalka Soomaaliya iyo Puntland iyo in si wadajir ah looga qayb galo shirka 7 May ka furmaya magaalada London kaasoo uu shir gudoominayo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha dalka Britain kulankii Garowe ku dhex maray dowladda federaalka iyo Puntland ma uusan noqon mid guuleysta kadib markii la isku afgaran waayay habka maamul samaynta gobolada ama federaalka sidoo kale Puntland waxa ay sheegtay in dastuurkii federaalkan wax laga bedelay Puntland waxa ay soo saartay qoraalo ay ku cadeynayso inaysan shirkaasi ka qayb galaynin bal nala daawada wasiirka warfaafinta Puntland oo ka hadlaya khilaafka waxa uu salka ku hayo aad baad u mahadsan tahay shirka London waxa laga hadlayaa danaha ummadda Soomaaliyeed baa laga hadlayaa dib u heshiisiin dadina maanay dhicin ummadda Soomaaliyeed dowladda hadda joogta dib u heshiisiin maanay dhicin dowladihii gobolada ee xubinta ka noqon lahaa sida dastuurka qabo inay federaal noqdaan Puntland mooyee hadda wax jira oo kale ma jiraan waa dowladda dhexe iyo Puntland Jubaland oo weyn muran ka taagan yahay oo dadkeedii la shirsan yihiin dowladdii dhexena ku haysato inay dowlad xubin ka noqoto ay noqdaan sidaa daraadeed dastuurka ummadda Soomaaliyeed waxa uu qoran yahay oo uu ogol yahay Puntland meeshii danaheeda laga hadlayo ama dowlad kale oo xubin ka ah federaalku danaheeda laga hadli doono inay goobjoog noqdaan sidaa waxaa qaba qodobka 54 ee dastuurka oo oranaya ajoodida caalamiga ah dowlad kasta oo xubin ka ah dowladda dhexe federaalka Soomaaliyeed shirkii la qabanayo ee danaheeda khuseeya laga hadlayo waa inay goobjoog ahaataa oo danaheeda ka hadashaa waxaa ka sii fog oo weliba oo arrintaas ku muujinaya maadaama dowladdu aanay nidaamkii federaalka weli u dhaadhicin aanay adeegyadii wada gaarsiinin oo kala heshiinin dowladihii dhalanayay ku yeelanayana caqabad ku tahay Puntland weli aanay iskaashi buuxa oo sidii lagu fulin lahaa federaalka aanay la yeelanin Puntland xaq waxay u leedahay oo dastuuriya shirka inay goobjoog ahaato danaheedana kaga hasho dana dhaqaalaha ku jira kuwa siyaasadeed baa ku jira kuwa kaalmo caalamiya ku jira kuwa khayraad dabiiciya ku jira kuwa siyaasadeed baa ku jira intaba inay danaheeda iyadu ka hadasho oo keento ilaa iyo inta ay ka dhalanayaan dhammaan dowladihii xubinta ka noqonayay hoostaan laga xariiqo leeyahay tirada dowladaha xubinta ka ah federaalka Soomaaliyeed waa waa intaa tiradu ilaa inta la oranayo gobol kasta oo maamul federaali ka jira xaq uu leeyahay inuu la ogaado wixii la qabanayo sida dadku qabo dowladda federaalka markay noo timi waxay la timi annaga wasiiradinka ah oo ka hadlayna shirka wixii cid walba khuseeya haddaad wax ka qabanaysaan ay jiro annaga noo sheegi kartaan laakiin wax doora ku yeelan maysaan taasi waxay meesha ka saaraysaa xuquuqdii dowladda Puntland ay ku lahayd federaalka meesha ka saartay saa u dhacdo dowladana waxaa waajib ka saaran yahay danaha dadka iyo dalka inay ilaaliso sidii federaal Soomaaliyeed ku hirgeli lahaana oo inay ka shaqeyso
maadaama ay road mapkii hore uga soo shaqaysay dhamaystirkii ku-meel gaarka ay ka qayb gashay hirgelinta dowlad federaal iyo dastuur federaal inay dhashaan ay ka qayb qaadatay weli dowladda puntland waxay u taagan tahay sidii uu ku taabaqaadi lahaa dowlad soomaaliyeed oo federaala oo wadatashigu nidaamka dawligu uu wadatashi ku salaysan yahay. ugu dambeyntii dowladda federaalka Soomaaliya waxay u muuqataa in ay guulo la taaban karo ka gaartay xiriirka caalamiga ah ay Soomaaliya la yeelanayso caalamka laakiin aysan weli fari ka qodnayn sidii ay u fadhiisin lahayd siyaasadeeda arrimaha gudaha oo ay u muuqato kala fogaansho u dhaxeeya dowladda iyo qaar ka mid ah maamulada ka jira Soomaaliya. waxaan filayaa inaad warbixintaas ayada aad ka bogateen taasoo ahayd warbixin aanu idiin soo ururinay intii aanu islahayn maalmahan dambe waxay ahaayeen intii ugu dambeysay ayadoo sida aad hadda warbixintayadaba ku arkayseen ay dowladda uu hogaaminayo mudane xasan sheekh maxamuud xagga dibadda waxyaabo la taaban karo ay ka samaysay balse tii guduhu ay tahay midaan fari ka qodnayn. si kastaba ha ahaatee khadka telefonka waxaa noogu jira isagoo dalka Switzerland jooga Professor Caraale stuudiyahana waxaa ila fadhiya xildhibaan Siciid Cali Shire. haddaba ugu horeyntii haddaan professorka xagiisa u leexdo Professor Caraale waxaan rabay marka hore warbixintan marka aad dhageysatay maxaa kaaga soo baxay oo kuu muuqday? وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الرحمن سلامي سعيد وان سلامي انجينير كان وان سلامي حرقو يدمان انجينير تيري كاقاني عاول برنامج سنو كسابتي هاي وحقبتي دولة مددي لدورتي دولة هاد جرتا لبعضو كلا دكتين لبعضو كلا بسين هيك دبدا inay ma taqaana guula ka soo hoysay iyo ma taqaana arrimihii gudahana ma taqaana in ayna waxyaalo waaweyn ayna ka qaban. horta runtii sideedaba Soomaaliya waxa weeye waa dowlad burburtay dowlad kastoo timaada ma taqaana dhibaatooyin ayaa ka qabsanaya tan xiriirka dibadda dowladdu guulaha ka gaadhay anuu ma arko in dowladdu xiriirka dibadda ay guulo waaweyn ka gaadhay waxa weeye waa siyaasad ay dowladaha reer galbeedku ay wataan oo ay rabaan inay Soomaaliya ka sameeyaan dowlad iyaga u daacad si ma taqaana danaha ay Soomaaliya ka leeyihiin ama ha noqoto dana istiraatiijiyadeed ama ha noqoto dana dhaqaale oo ma taqaana iyagu ay leeyihiin sababta waxa weeye si dowladii Soomaaliya u dhacday 1991kii iyaga xiriirka jaray markii dambana ma taqaana iyaga intaasoo dhan ku hayay marka hadda waxay u muuqatay in iyagu ay soo noqdeen ilmaha dadaal ka yimid dowladda hadda jirta oo xasan maamulayo oo iyagu ma taqaana intay ay juhdi u gashay xiriirka sababta haykalkii ama institutionskii sameyn lahaa waxaaba ma haysataba sababta waxa weeye waa dowlad ama ma taqaana juri state waxa weeye sharci ahaan hadda loo aqoonsaday in ma taqaana guulaha intaa la gaaro waxay u baahan tahay diblomaasiyadeed xirfad leh dad ma taqaana expert u baahan tahay marka aan u malayn maayo ma taqaana warbixintii saas ku sheegteen in xiriirkan hadda ay dowladdu la samaysay ama safaaradaha la furtay ama xataa aqoonsiga laftiisa guulo ay dowladdu gaadhay laakiin waxa weeye waa wax ka yimid ma taqaana dowladaha reer galbeedka oo danahooga Soomaaliya kale waayahay Siciid haddaan adiga kuu soo noqdo oo Professor Caraale aan u kaadiyo ما كن رعسن تهاي بروفيسور كم سواكو كلا دوانتي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا عبد الرحمن أديقا يا بروفيسور عرالي يا بهدا صومالي سد يا مجتمع الصوماليات داوني يا برنامج كبوا سلامي بعد السلام سيدا وشيغ دكتوركو أرمها مركا قيمين حسين وحقبتك مدحوينها يا دولتكم هذا كجرت الصومالية وحوكلا صارتين لبو arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha waxaa sheegteen arrimaha dibadda in dawladdu ay ka sameysay horumar waxaa laga yaabaa in la isweydiiyo maxay tahay mastarada lagu cabirayo horumarka dawladdu ka sameysay arrimaha dibadda haddii lagu cabirayo Cabdiraxmaan oo safarada uu madaxweynuhu sameeyey
ama meelaha la tegay waa la dhihi karaa waxaa la sameeyey horumar waa dhab madaxweynuhu wuxuu kusoo beegmay xilli Soomaaliya ay ka baxday kumeel gaarkii oo ay dhalatay dawlad rasmiya wuxuu kusoo beegmay xilli caalamku uu ku khasban yahay inuu Soomaaliya ula macaamilo sidii dawlad iyagoo kale ah inuu ula macaamilo ku khasban yahay awalba Soomaaliya dawlad bay ahayd laakiin waxaan la aqoonsanayn oo kale waxay ahaayeen institutionska dawladeed ee hadda jiray markaa jiray baan la aqoonsanayn dawlad buuxda loo aqoonsanayn waa dhab safaarado badan baa la furay waa dhab safaarado badan baa ka furtay Soomaaliya waxaasoo dhan wax qabad laakiin wax qabadka ma loo bedelay faa'iido ma dhalay tusaale ahaan haddii anigu waxaan ku qiyaasi lahaa wax qabadka haddii Mareykanka oo kale ama Europeanka oo kale markay la kulmeen madaxweynaha ay aqoonsadeen haddii gacan ka geysan lahaayeen arrimaha dubdhiska Soomaaliya budget miisaaniyada ay ku bixin lahaayeen waxaan ognahay in qayladhaanka maalin walba TV-yadu soo tabiyaan oo mushaharada ciidamada iyo waxyaabo badan inay weli jiraan marka yes madaxweynaha safar badan waa sameeyay meelo badan waa tagay si fiican waa loo soo dhaweeyay laakiin in la dhaho wax qabad bay ahayd iyo in la dhaho wax qabad ma ahayn waxay noqonaysaa marka hore inaan sameeyno mastarad aan ku cabirno anigu marka waxaan leeyahay mastaradu wali ma degana arrimaha gudaha marka madaxweynuhu up to some extent yes horumar waa jira safar badan waa tageen meelo badan waa tageen laakiin dhinaca kale dadkii ayna ku khasbaneen inaynu la noolaano wadamada dariska Kenya iyo Ethiopia waxaa muuqata in xiriirkooda maalinta ka dambaysa uu si kala fogaanayo ayaa muuqata marka haddii wadamada dibadda Mareykanka iyo Europeanka oo kale xiriirkooda uu madaxweynuhu adeegsan lahaa inay soo dhaweeyaan Soomaaliya wadamada dariska waxay noqon lahayd wax lagu amaano haddaan usoo laabto arrimaha gudaha waa u imaan doonaa dibadda baan rabaa marka hore inaan ku ekaan professor Caraale waxaan rabay waxaad salugsan tihiin waxqabadka dibadda dawladda annaguna aan wax la taaban karo ayay ka sameeyeen madaxweynaha iyo dad badani iyo ra'iisul wasaarahaba intaba waxay u dabaaldegayeen markii Mareykanka uu tagay oo uu sheegay Mareykanka maamulka hadda jira inuu aqoonsan yahay lana shaqayn doono ayna safaaradaha isweydaarsan doonaan taa iyada amiyaan ay ku amaanayn booqashadu ku tagay madaxweynaha dalka Mareykanka waxa weeye dawladda Mareykanka saan hore u sheegay ayaa dana kale dalka Soomaalida Mareykanka tigitaankiisa misalan example ku soo qaadaya Yasser Arafat madaxweyne Falastiin PLO-da waxa weeye wuxuu tagay White House-ka waa la soo dhaweeyay wuxuu u qaatay Mareykanku inuu wax ka soo qabanayo haddana xaaladda Falastiin ku dibsooday inkastoo inay qadiyadda Falastiin la isla badhigin marka waxa weeye madaxweyne Mareykan aad la kulantid wax ma taqaanaa isbedela ma sameynayso haduuna sidoo xildhibaan Saciid u sheegay haddayna meesha ka soo dhalaynin wax la taaban karo tukalna arrin kala jirta waxaad moodaa inaga siyaasadeena arrimaha dibadda ay dawladda leedahay inayna lahayn wax la yiraahdo vision aragtida waa inay siyaasaddu leedahay xataa marka la dhaqmayso dawladaha waaweyn waxaad moodaa inay tahay wax la yiraahdo falcelin ma taqaanaa inaad ma taqaanaa waxa dawladaha ka soo baxay aad dib u celinaysid laakiin inay lahayn aragti dheer sababta waxa weeye siyaasadaada arrimaha dibadda waxa weeye arrimaha gudaha waxyaalaha jira maxaa iga anfacaya waa inaad ma taqaanaa ama xagga security ha noqoto tukala arrin kala bijirtaba intaadna siyaasadda arrimaha gudaha hore u gelin tan gudaha lafteeda waa inaad hagaajisid oo ma taqaanaa maareysid markaasay dalalka dibadda lafteeda ku ixtiraamayaan oo ku qiimeynayaan marka dawladda Mareykanku waa dawlad quwad weyn adduunka maanta waxa weeye waa post cold war waxyaalo badan bay ay Soomaaliya u qaban kartaa laakiin waxaad moodaa siyaasadeeda lafteedu inay ku salaysan tahay Mareykanka laftiisa la dagaalanka argagixisada inagana la dagaalanka argagixisada quraata maaha waa dal burburaanahay waxaan u baahannahay Germany oo kale wuxuu u baahnaa ma taqaanaa markuu burburay second world war waxa la yiraahdo Marshall Plan sida loo qabo kama filano dalalka reer galbeedku inay wax noo qabtaan marka waxa weeye laakiin siyaasadda Mareykanka markaan aan fiiriyo siyaasadoodu waxa weeye war against terror taasina waxa weeye maaha arrin Soomaalida badbaadinaysa ama kor u soo kicinaysa dhibaatada naga waa garanay professor Caraale Saciid marka aad leedahay wadamada dariska ah iyo siyaasadda Soomaaliya
la iskuma wanaagsana hadda ra-iisul wasaaraha Ethiopia ee cusub oo kale markii madaxweynaha la doortay kadib xafladiisii caleemasaarka waa uu ka soo qayb galay waa u yimid Kenya dhowr goor buu tagay Ethiopia dhowr goor buu tagay qaabkee way qaabka marka xiriirkooda isugu fiicnayn mar haddii booqashooyinkii iyo safaaradihiina ay jiraan oo ay shaqaynayaan cabdiraxmaanow ka qaybgalkii madaxweynuhu ka qayb galay caleemasaarkii madaxweynaha cusub ee Kenya ama ra-iisul wasaaraha Ethiopia ma noqonayso mastarad lagu cabiro wanaagga xiriirka wadamada waxaa lagu cabirayaa xiriirka wanaagga wadamada iskaashiga dhexmara qaabka ay isu caawiyaan Ethiopia hadda waxaan ognahay iyadoo rabta inay pressure gareyso dawladda inay tiri ciidamadeeda waa kala baxaynaa Soomaaliya way og yihiin ciidamada Afrikaanka ah ee ka jooga qaramada midoobay iyo ciidamada Soomaaliya midkoodna inaysan lahayn awood ay ku buuxiyaan meelaha ay baneeyeen ciidanka Ethiopiaanka waxay noqonaysaa dhabarjab hawlgaladii lagula dagaalamayay shabaab ayay ku noqonaysaa in misana kow laga soo bilaabo way ciidamada hadda Afrikaanka meesha jooga mala awood ay ku buuxiyaan meelaha jooga ciidanka Ethiopiaanka waxay noqonaysaa inay isugu soo ururaan dhowrka magaalo waaweyn آخر أي نقطة إني كبحان حتى دور كمجال واوين وأرين موجنا سوا سيجنال موجنا يا إن حرير كسو حمانيو كيا إنك استوى تريد بانو دجندونا أرمها جودها يا أرمها دبدو مكلا مارمان ودن كمركوس كقنا حسنين سياسة ده جودها وحو رياكشن كيس في العلس كيس وحكم مقنسة أرميه الدبدة كمقنسة وحلقة يا باكي إن سكوقنا حسنين قاب كدولدو أي وأبروج كريسي أما أي ولا تعافوا شيء أرمها جبوينك ay ula dhaqantay taasa waxay keentay iyaga laftigood inay mararka qaarkood pressure ku noqdaan oo ognahay ra-iisul wasaaraha tagay madaxweynaha tagay midkoodna ujeedada ay u tageen Ethiopia iyo Kenya oo ahayd in la joojiyo shirka ka socda Kismaayo kumaysan guuleysan oo la aaminsanaa marka hore labadaas wadanba waliba Kenya inay leedahay dowr maadaama ay dad badan ku leedahay oo saaxiibo ah ciidamadeeduna ay joogaan meesha inay dowr ku leedahay marka maadaama ay ku guuleysan weyday wixii hadda madaxweynuhu uu sheegay inay tahay priority-giisa number 1 inay u tahay waxa koowaad u qabanayo amniga maya in maamulkaas uusan hirgelin uu sheegay waxa koowaad u qabanayo waayo shirkii hadda ugu dambeeyay egaad buu ka sheegay markuu la kulmay baarlamaanku ka sheegay ra-iisul wasaaraha ka hadlay waxa la dhihi karaa 4 bilood u dambeysay 50% shaqada dawladdu waxay ku koobnayd arrimaha jubbooyinka marka iyagoo 50% arrimaha jubbooyinka shaqadooda ku koobnayd dhinacna ka tiraahdeen aqoonsi fiican iyo soo dhaweyn bay kala kulmeen caalamka soo dhaweyntii miro ma dhalin hadday miro dhali lahayd waxaa la arki lahaa sida auditorku sheegay Soomaaliya maanta dhibteedu waa dhaqaalo waa burbur waa dib u dhisna hadal iyo diyaarad la fuulay ma daweeyo waxay u baahan tahay contribution financial lacag bay u baahan tahay deeq bay u baahan tahay sida auditorku sheegay sidii Germany oo kale Marshall Plan bay u baahan tahay ingiriiska maalintii maraan dhageysanay waxay sheegeen 3 milyan oo pound oo inta badan ay ku baxayso gudniinka inay Soomaaliya ay ka gacan ka geysteen bay sheegeen tusaalahaan Soomaaliya waa dal burburay oo infrastructure-kiisa baaba'san yahay wadooyinkiisa baaba'san yahay u baahan isaga dhan isbitaallo iyo caafimaad iyo institution wax kasta la dhiso ciidankii la qalabeeyo waxaynu ognahay ciidankii inaysan mushaaraysan qalab haysan marka safarada madaxweynaha iyo xiriirada wadamada dariska iyo dadka isku fiican yihiin waa inay miro dhalaan mirihii ilaa hadda maana arkin iyadoo diblomaasiyadana maanaan arkin oo lagala hadlayo wadamada dariska ah iyada oo deeq lacageed ah ama garab istaag moral marka laga tago safaarada laga furayo Soomaaliya marka laga tago oo iyaga laftigooda ah bilow fiican waa gartay professor Caraale hadayna gudaha u soo noqono sida uu sheegay xildhibaan Saciid ba adiga haddaad booska hadda taagan tahay bal ka soo qaad madaxweynaha hadda talada haya Soomaaliya xageed wax ka bilaabi lahayd professor Caraale طبعا كم مقليا ها سؤال كان عبد الرحمن وحوي وسؤال في عن marka ugu horeysa horta waxa weeye talaabada ugu horeysa madaxweynuhu horta waxa weeye in gudaha dalka inuu ninku wax ka qabto weeye markuu leader yahay number 1 waxa weeye in mesela Soomaaliya hadda markaad fiirisid waxa jira maamul goboleedyo mesela ay ugu weyn tahay Puntland oo kale waxa jira maamul goboleedyo kale waxa weeye maamul goboleedyada laftooda inuu xiriir fiican la yeesho in ummadda Soomaaliyeed lafteeda ay ka dhalato reconciliation in uu madaxweynuhu iska ilaaliyo waxyaalo ma taqaanaa sababta waxa weeye dadka Soomaalida sideedu waxa weeye waa dad burbur iyo dhibaato ku soo dhacay marka waxa weeye waxyaalo badan oo waxa jira ay ka damqanayaan baa jira mesela arrinta sida Jubbaland oo kale ma haddaad ka hadlaysid waa inuu uga hadlo si diblomaasiyada maaha inuu ma taqaanaa
si qeexan oo uga hadlaa masala uu yidhaahdo mataqaanaa 2 qabiil iyo 3 qabiil dowlad maamul ma samaysan karaan waxa jira waxyaalo laga fiican yahay muhiimadda loo jeedaa waxa weeye markaad adigu madaxa tahay waxa weeye madaxnimadu waxa weeye waa instrument waa wasaayad ujeedada ugu weyn ee laga dalay waxa weeye qarankii Soomaaliyeed ee burburay ummadii Soomaaliyeed sidii la isku keen lahaa marka ninka madaxweynaha ama ninka ra'iisul wasaaruhu waa inuu noqdo ugu dhaxaad ama hilaal ay dadku hiisanayaan ay leeyihiin wallahi ninkaas maanta Soomaali isku keenaya oo vision leh oo aragti leh oo ma taqaanaa dhaxdhaxaad oo dadka soo jiidanaya marka madaxweyne waxaan ka filaynaa ilaahayna ka dhigo waanu ducaynaynaa sababtoo aanu markaan hadda nacam isaga aan dhaliil gaaro personal uma jeedinayo waxa weeye jacayl aanu qabo ma taqaanaa dalkaygu inuu hagaago sababtoo Soomaaliya 30 sano xorhayd maanta 22 sano dawlad la'aan tahay inay haddana inay noqoto ma taqaanaa dal aan dawlad la'aan 8 sano quraatay nooga hadhay marka waxa weeye madaxweynuhu waxa weeye waa inuu sameeyaa wax la yiraahdo dib u heshiisiin Soomaalida gudaheega oo maamulada lafteeda oo ma taqaanaa wixii gufa oo iska ilaaliya dadka kale Soomaalida ee dhibaatadu kala gaadhay laftooda soo heshiisiin lahaa waa inuu faladood qabtaa isaga iyo dawladda kaleba isagoo kaashanaya dadka aqoon-yahanka ah ee ma taqaanaa public intellectualska sababta waxa jira aqoon-yahan dadkiisa u damqanaya iyo mid aan u damqanayn waxa jira dad culimaadood u damqanaya marka waxa weeye waxyaalaha fara badan ayaa runtii ku talafsan lahaa haddaan boosiis joognaa aad iyo aad Saciid qadiyadan Jubbaland maxaa buuqa intaa la eg iyo muranka intaa la eg geliyay hadiiba dastuurku uu ogol yahay 2 gobol iyo wixii ka badan inay maamul samaystaan cabdiraxmaanow intaanan kelmad ka oran Jubbaland su-aashii Caraale dowrka madaxweynaha ee laga filayay aan kala wax yar ku darsado dadku markii ay madaxweynaha ama xukuumadda hadda jirta dhaliilo ka sheegaan macluumaha inay mucaarad ku yihiin macluumaha inay nacab yihiin waa sida uu doctorku sheegay nin walba wuxuu rabaa in wanaag hagaago khayr u yimaado ceebaha la daboolo dowrka ugu weyn madaxweynuhu maadaama Soomaaliya dhowr iyo 20 sano ay ku jirtay dagaal sokeeye waxay ahayd inuu dadka isu soo jiido inuu noqdo birlabti ummadda isu keenaysi inuu noqdo mideeye inuu noqdo geed lagu soo wada hirto inuu noqdo qof aabe iyo hooye u ah ummadda Soomaaliyeed u naxa u damqada ka moogjeeda ka qiirooda ka dhibtooda ka naxa dareen u muujiya la tafaacula dhibta haystay iyo dhibaatooyinka haysata arrimahan marka inuu madaxweynihii mas'uuliyadiisii iyo shaqadiisii oo dhan ay ku soo ururtay hal gobol waxay keenaysaa kalsoonida inay yaraato waxay keenaysaa ilaahay ma qadare inaynu dib ugu laabano cabsi inay timaado oo dadkii isu soo dhawaanayay muddada badan waayo intii ku meel gaarka ahayd oo dhan ujeedadu waxay ahayd dadku isu soo dhawaadeen ay isdhex galeen miisaha wada fadhiisteen waxa wada yeesheen hadda waxaa cabsi ah jirta ilaahay ma qadare in la sii kala fogaado la sii kala durko taasna waxay keenaysaa madaxweynuhu awoodiisii ay ahayd inuu adeegsado isu soo dhaweynta dadka isjeclaysiinta walaalnimo ka dhex abuuridooda kan liita soo kicintiisa kan dheereeya inuu dhaho wargaabi oo dadka sug arrimaha bini'aadanimada inuu awoodda saaro dib u dhiska dalka inuu awoodda saaro ahmiyadda anigu waxaan rajaynayay madaxweynuhu inuu noqdo madaxweyne dadka masaakiinta ku dhex nool waxaynu ognahay hadda arrin azmo dhaqaale inay ka jirto Soomaaliya doolarkii uu isbedelay dadkii aysan waxba gadan karin duruufo dhaqaale ka jira wadankii dib u dhis ma bilaamin wali infrastructure-ka dawladda wadooyinkii marka iyadoo masaa'ibtaas oo kala dhami ay jirto waxaynu u baahannahay awoodeena iyo juhdigeena oo dhan hadda inaynu isugu geyno walaalayn iyo dib u dhis iyo horsocod arrimaha jubbooyinku de waa su-aal ku fiicnaan lahayd madaxweynaha in la weydiiyo madaxweynuhu markii uu tartanka gelayay iyo markii dambe wuxuu soo bandhigay inuu 6 qodob oo awoodda saarayo Jubbaland kuma jirin waxay arrimo Soomaaliya oo dhan waxyaabo badan oo dhab ahaantii geesinimo lehna wuu sameeyey waxaan isleeyahay anigu arrintan Jubbaland waa arrin laga badbadiyey labada dhinacba waana arrin haddii aan la joojin keeni doonta in kalsoonidii ummadda Soomaaliyeed ay sii wiiqanto dawladdu way ku khasban tahay inay boosashadeeda ka soo degto madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddu ay dadkaas u ogolaadaan rabitaankooda iyaguna way ku khasban yihiin inay qayb ka noqdaan dib u dhiska iyo jiritaanka qarnimada Soomaaliyeed waa la isku khasban yahay
haddii laakiin qof walbaaba uu meeshiisa isku adkeeyo waxay noqonaysaa in intii yartaada Soomaaliya lagu kala tago professor Caraale maadaama hadda uu shirkii London bilaabanayo jub ay sheegtayna Somaliland ay raahday ay sheegtay inay shirkaas ka qayb galayn haddii aan loo aqoonsan waxa ay xaqa u leedahay oo ah dawlad la siman dawladaha shirka imaanaya Puntlandna ay diiday ayadoo saluugsan sida madaxweynaha uu wax u wado taa iyada marka ma isleedahay madaxweynaha naftirkiisa waxay ku noqonaysaa tegidda goobta uu tagayo ay dhaawac ku noqonaysaa mise waxba ma ahano maadaama isagu uu yahay ninka loo aqoonsan yahay Soomaaliya inuu madaxweyne yahay sidaasay wax ku soconayaan horta waxa weeye markaan ka hadlayno ma taqaanaa dawladda Soomaalida awoodda la yiraahdo dujuurada waxa weeye horta dawladda dhexe iskale dawladda dhexe Soomaaliyeed ayaa iskale oo ma taqaanaa aqoonsiga dawladda dhexe iskale Puntlandna male Somalilandna male marka umalayn maayo taasina wax u dhimayso khaladka ugu weyn oo madaxweynuhu galay waxa weeye wadahadalladu la yeeshay Somaliland shirka ka dhacay Ankara go'aanadii ka soo baxay waliba go'aanada maaha in uu aqoonsaday in the government of dawladda Somaliland iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa taa ku qoran sababta taan waxaan u arkaa ma xagga ma taqaanaa dad experience aan lahayn ayaa la socday madaxweynaha waxa weeye taas sababta taa waxaan tusaale u soo qaadanayaa markuu hadda madaxweyne Siilaanyo tagay ee dalka Mareykanka qof dumar oo ah deputy arrimaha siyaasadda oo leeyahay Sherman communique soo wada saareen marka communique waxa lagu soo saaray dawladda Mareykanka iyo maamulka ama authority-ga Somaliland marka marka waxaad moodaa madaxweynaha marka taxariinta Somaliland la fiiriyo inuu ciyaarayo doorkii ma taqaanaa dagaalkii labaad ka hor intuuna jarjabday wasaaraha ka noqon dalka Ingiriiska Chamberlain inuu doon jiray oo appeasement aad iyo aad sasabasho xoog leh oo marmarkaa ku keenaysaba in uu Somaliland uu aqoonsado marka runtii taasa halku weyn uu ka dhacay qalaw waa ku maqlaa Caraale marka khaladka ugu weyn taas ka dhacay khaladka ugu weyn laakiin tan kale ah shirka London iyada tigitaan la'aanta Somaliland ama Puntland umaleyn maayo inay taas waxba uma dhayso sababta waxa weeye international community dawladda dhexe aqoonsan tahay marka taasi wax dhibaato uma keenayso Somalilandna iyadu markay lahayd shirka aan ka qayb galno ujeedadeedu waxa weeye in ay rabtaa inay hesho aqoonsi recognition inay hesho way rabtaa marka taasina waxa weeye iyadoo bay adduunka uma aqoonsana inay tahay ma taqaanaa dawlad international recognized inay tahay looma aqoonsana marka taasi wax dhibaato uma keenayso malaynaya aniga fikriyana waa gartay taas haddaan taa intaa uga tagno Saciid oo u gudubno shirka London oo bishan 7 oo aan filayay inay tahay berrito ka furmi doono magaalada London qodobadiisa ma jiraan wax ku cusub oo kii hore ka duwan markii dawladda ku meel gaarkeeda Sheekh Shariif iyo Cabdiwali shirku Cabdiraxmaanow waa 2 maalmood maalinta hore oo bariya waa shir siyaasadeed haddii ay ka faa'iidaysato Soomaaliduna fursad badan baa ugu jira Soomaaliya oo dib u dhis iyo horumarin u badan development iyo infrastructure development u badan dib u dhis iyo horumarin u badan haday ka kan labaadna waa kan ganacsiga mid ka labaadna wuxuu noqon doonaa ganacsiga isagana ujeedadiisu waa dadka qurba joogta si loogu dhiirigelin lahaa siday gacan uga geystaan doorkooda ee ganacsi iyo horumarin Soomaaliya alors haddii Soomaaliya markay shirka imaanayso ay la timaado barnaamijyo waxtar ah oo dalkoo dhan ah markaas khasab maaha inay yimaadaan madaxweynaha Somaliland iyo kan Puntland laakiin haddii xukuumaddu ay la timaado barnaamijyo kooban oo hal gobol oo kamid ah Soomaaliya ah markaas waxay sii abuuraysaa si kala fogaansho marka xukuumadda laga rabaa si hadiiba ay jirto caqabad u dhaxeeya iyaga iyo Somaliland iyo Puntland iyo Jubaland iyagu inay u dhaqmaan qaab statesman qaab qarannimo madaxweyne inay u dhaqmaan matalan ummadda dhan mashaariicda iyo ugu doodaan ummadda dhan wixii mashaariic ah ay u soo bandhigaan ummadda dhan yani waxa ay soo bandhigayaan aysan noqon wax kooban gobol aysan noqon wax kooban Soomaaliya dhan
wixii ay helaan ay noqdaan waxay gaarsiinayaan Soomaaliya inay noqdaan I think hadday taas sameeyaan dambe kalsoonidii way soo celinaysaa tuhunkiina wuu tirtirmayaa waa gartay professor Caraale oo khadka telefoonka kulay muddo dheer ku jiray professor Caraale waxaan rabay inaan ku weydiiyo shirkan London maxaad is leedahay kii hore uu uga duwan yahay ama waxa uga soo bixi kara dadka Soomaaliyeed maadaama tii shalay uu ahaa shirka markuu dhacayay dawlad ku meel gaar ah hadda se ayaan ahayn maxay isbedel oo keeni kartaa wallahi Cabdiraxmaan oo inaga dalalka reer galbeedka unbaa yidhi dawladani waa rasmi moogtahay laakiin xaqiiq ahaan markaan dhab ahaan oonino waxa weeye dawladda hadda ka jirtaa iyo dawladdii kumeelgaadka aniga fikriyan ahaan wax farqiga u dhexeeya ma jirto sababta waxa weeye waxay ku xidhan tahay dawladdu markay mataqaanaa awood leedahay la dhegaysanayo ay leedahay de facto power ay dalkao dhan mataqaanaa gacanta ku hayso marka shirkan London waxa weeye uun inagu ma nacam waxaan ka hadlayaa inagu Soomaalidu mataqaanaa siyaasad arrimo dibadda ay meesha la tagayso oo mataqaanaa adduunku ay intay la tagto adduunkuna mataqaanaa wuxuu ugu taraya maaha waxa weeye waa wixii adduunku u garanayo waxa weeye wax lagu yiraahdo afka Ingiriiska asymmetrical waxa weeye waa waxaan isku dheelitirnayn marka waxa weeye shirkan Ingiriiska qaban qaabiyay wuxuu Soomaalida oo chairman baan ka dhigayaa isaga u gartay marka ujeedada au kala yahay waxa weeye isaga weyn waxa weeye piracy oo la dagaalamo weyn waa piracy la dagaalamo iyo wax la yiraahdo argixisada laakiin waxa fiicnaan lahayd shirku inuu noqdo shir wax la yiraahdo state building inaga waxa weeye Soomaalida haykalkii dawladda dhan baa burburay marka u malayn maayo reer galbeedkuna ma aniga way aragnimadayda meelaha ay burburiyeen oo state building ay ka sameeyeen way yartayba hadda soo qaadatid Iraq hadda soo qaadatid Afghanistan waxa weeye meelahaas oo dhan wax bay kana laakiin waxaan sugaynaa ma taqaana Soomaalidu influence weyn ay ku leedahay shirka ma jirto laakiin waxaan sugaynaa ma taqaana waxa iyagu inoo gartaan sababta waxa weeye waxaan ku gorgortano ma yeelaba tan ku gorgortamo ay dawladda ku gorgortami karto waxa weeye iyadoo ka haysata dad aqoon-yahana oo ma taqaana oo shirarkan multilateral diplomacy-ga aad iyo aad u qoto dheer oo marka fikrad ahaan aqoon-yahan isku leeyahay ugu dambeyntii professor Caraale anoo rabo inaan ku fasaxo maadaama khadka telefoonka aad xogaa in muddo ku jirtay ugu dambeyntii maxaad tala siin lahayd dadka Soomaaliyeed iyo dawladdaba maxaad is leedahay shirka London bari way ka soo baxayaan haddii alla yiraahdo ma shirka waxa ka soo baxay waxaan ka filayaa mise talada ummadda Soomaalida siinayo labadaba okay horta waxa weeye shirka horta shirarkan ay qabtaan ma taqaanaa dalalkan reer galbeedku sideedaba waxyaalo badan bay ballan qaadaan hadda inaga shirar badan waxa jira Soomaaliya loo qabtay ilaa 20 sano burburka uu jiray oo leeyahay Soomaaliya intaasoo bilyan baa loogu deeqay intaasoo wax waa loo qabanayaa haddana ma taqaanaa waxa loogu dhawaaqo shirarka multilateral diplomacy-ga iyo ficil ahaan waxa la sameeyaa waxa weeye waa laba arrimood oo kala gedisan Afghanistan bay ka dhacday inaga ka dhacday marka runtii anigu ma taqaanaa wax weyn oo isbedel weyn oo ma taqaanaa dhaqaalahaan u keenayo oo u malayn maayo shirkaas anoon ummadda Soomaaliyeed niyad jabinayn ummadda Soomaalida waxaan oran lahaa weliba dadka ma taqaanaa diaspora jooga ee aqoon-yahaniinta dadka ganacsatada ah waxa weeye dad shay waxba inoo qaban karaan dad shay waxba inoo yeeli karaan Soomaaliya Soomaali baa leh inaga dalkeena haddaynan dhisan haddaynan u guntan haddaynan ma taqaanaa aynaan iskaashi samayn waxa weeye Soomaaliya dhibaatadii ku jirto kama bixi karto dawladdana waxaan oran lahaa waxa weeye aqoonsiga aad haysatiin maanta ee international community haysan ha u qaadanina inaad tihiin dawlad dalkoo dhan ka talisa waxa weeye ama ha noqoto maamul goboleedada ama shacabka Soomaaliyeed waa inaad dhegaysatiin waa inaad
waa inaad garatiin inaad tihiin dawladdii mataqaanaa yegleelaysay in qaranka soomaaliyeed uu dawlad yeesho laakiin ha isku qaadinna inaga dhibaatada inay haysto waxa weeye soomaaliya waxaa jira dhaqan siyaasadeed baa jira ama political culture ninka marka la yidhahdo waa madaxweyne way isku qaadanaya mataqaana sidii dawladdii waagii hore ee militarigeedii jirtay ama dawladii kaloo jirtay marka waxaan odhan lahaa dawladda soomaalida waa inaad mataqaanaa aad yeelatid dawlad mataqaanaa dib u heshiisiina oo dulqaad badan yeelata oo dadka soomaalida sukanayo gudaha waxaad ka samaysiina ayaad mataqaanaa soomaaliya sumcadeeda kusoo noqonaysaa cabdiraxmaan adiga siciid waan salaamay waa kaa qaaday injineerkana waan salaamay aad iyo aad baad u mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa professor caraale oo jooga dalka Switzerland magaalada Zurich professorka aad iyo aad buu u mahadsan yahay sida markasta oo aan la xiriirno uu noo ogolaado isagoo oo aan ognahay duruufaha ka jira dalalka reer galbeedka ah iyo waqtiyada siciid dan adiga aan ku soo laabto waxaan rabay inaan ku weydiiyo shirka London ka dhacaya berrito ka furmi doona bishan 7 ay tahay May 2013 madax badan oo dunida ayaa isugu imaan doonto Soomaalidina hadda waxaa matalaya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud dad badan oo Soomaaliyeed ayaana waxay ka rajo qabaan ama ididiila ka sugaya in uu shirkan ka soo bixi doono marka waxa laga fili karo waa wax inta leeg Cabdiraxmaan waxaan isleeyahay wax badan baa ka soo bixi kara laakiin waxay ku xiran tahay xukuumadda iyo hadba barnaamijka ay la timaado shirka mid kamid ah aafooyinka ku dhacay maamuladii hore waxay ahayd hangaabni hanyari ay ahayd waxba gacan uguma jirin waxay ku qanacsanaayeen wixii loo yeeriyo rabitaan iyagu ma lahayn hay'ado international ah iyo hay'adaha u jooga qaramada midoobay Soomaaliya ayaa barnaamijka soo diyaarsan jiray Soomaalida anigu waxaan ku matali jiray sidii qof lagu tuugsanayo adduunka bay ahayd intii sawir foolxun Soomaaliya la sameeyo burcadbadeedii faqrigii argagixisadii ayaa waxaa la dhihi jiray marka barnaamijtii lagula dagaalamay lahaa caalamku ha keeneen hadhowtan iyaga maamuli jiray maadaama hadda Soomaaliya ay haysato aqoonsi buuxa waxay ku xirnaan doontaa wax badan ogowna waxaad aad u ammaanteen xukuumaddu horumarkay ka samaysay arrimaha dibadda mid kamid ah waxyaabaha lagu qiimeyn doono xukuumaddu waa kow barnaamijka ay la timaado shirka ma yahay barnaamij u qalma ka turjumaya baahida Soomaaliya comprehensive oo Soomaaliya dhan taabanaya wax bedeli kara ma yahay laba waxay ku xirnaanaysaa si barnaamijkoodaas yani diblomaasiyadda u sameeyeen iyo orodkay u galeen si ay beesha caalamka uga dhaadhacsiyaan intaa shirka limaan ogow shirka communiquegiis waa qoran yahay horaa loo heshiiyey hadda waa formality dhowr iyo 50 wadan shir ay ka soo qayb galayso oo dhowr saac soconaya wax badan laguma jeexjeexi karo marka dowrkii arrimaha dibadda ee Soomaaliya baritaa la arkaya iyo juhdiga ay u galeen inay qanciyaan beesha caalamku inay gacan ka geystaan arrimaha Soomaaliya marka anu waxaan isleeyahay xukuumaddu hadday qabatay shaqadeedii oo 9 bilood ay ku mashquulsanayd inay saaxiibo samayso marka laga hadlayo siyaasadda mararka qaarkood shaqada ninka siyaasiga 4 baa lagu soo koobaa inuu alliance sameeyo saaxiib inuu u sameeyo lobbying inuu qadiyadda aaminsan yahay uu ordo advocating iyo inuu u doodo haddii marka ay lobbying u sameeyeen qadiyadda Soomaaliya ay advocation u sameeyeen u doodeen saaxiibana ay u sameeyeen arrinta Soomaaliya shirka waxaa ka soo bixi doona package dib u dhis ah Soomaaliya aqoonsi iyo hadal fiican Soomaaliya uma baahna waxay u baahan tahay wax qabad bay u baahan tahay laakiin ballanqaadyada reer galbeedku ay qaadaan siciidinta badan ma fulaan innaga ina ku xiran tahay haddii adigu aadan la imaan asbaabtii keenaysa in lagu siiyo cidda wax ku siin maysa corruptionka haddaadan la dagaalamin institutionada dowladnimo haddaadan samayn kalsoonida ummadda haddaadan muujin dabcan cidna wax ku siin mayso waayo hantidii waxay gelaysaa qof jeebkiisa gelaysaa hadda soo joint committee oo dhaqaalaha soo ma jira yani asbaabaha waxaa soo dhami keenay waa wixii hore laakiin wax badani waxay ku xiran tahay hanka dowladda iyo waxay la hortimaado ayay ku xirnaan doontaa laakiin anigu waxaan isleeyahay maanta waxaa jira momentum wax lagu qaban karo ayaa jira beesha caalamkuna ayna dhegeysanayso waa gartay Farxiya Cali oo naga soo wacaysa London Farxiya assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة ayo walaashay inaad taleefanka igala socotaan jeclaan lahaa TV-gaad iska gaabis adoo raaliya اوكي waa salaamantihiin adigii iyo wiilkula fadhiyaba ka qaadnay saan filaya barnaamijka waxaa looga hadlaya shirka
بريكا فورم دون لندن haddii alla yiraahdo shirka horta waxyaabo badanaa kolay Soomaali uu qabsooni doono insha Allah saa wada ognahay 60 dowladood ku dhawaa ka soo qayb gali doono saa ognahay kolay insha Allah wax fiican ka qabsooni doono dhaqaalaha loogu aruurinayo Soomaaliya waa soo dhaweyneynaa insha Allah Ilaahay khayr ha ka dhigo dhinaca kalena Puntland iyo Somaliland hadday diideen shirka soo qayb galaan taas micno ma sameynaysaa amisanaha aniga labadooda waa lagu sharfay wayna ka soo qayb gali waayeen marka taas micno ma sameynayso Soomaaliya madaxweynaha madaxweynuhu afayana adduunka laga aqoonsan yahay sidana shirka London ugu qayb gali doono taas halkaas uu baxaya adinkoo Israel marka waxaan rabaa wiilka xildhibaanka soo mahadsan inaan su'aal weydiiyo wuxuu dhahay Jubaland أنا إنك صعب أقوسنا واحد شو بلان أو كسماي وحلي رأي أقوسنا هاي أنا كسماي كي ما بي كسماي واحد ده هاجرو جبلها سنة كميتها واحد جبلان ده ما جرته لكن محاولي لهاي ويل كان يتناش كوافق يا أصحاب مهتم ويقول هاي إن وحيابها أو فوق فهمي كرنو إن دولة فشلونتها وحكمتها إن الدولة كان كهلويسي حب دولة الصومالي معمولة في جبلان سؤال كتاعهم حتى الصومالية أتكلم مثل يا أتكلم وسؤال هاي بس aniga waxa iga jawaabtaa waxa tiri in laga soo tago Somaliland iyo Puntland wax macna ma leh maxay macna u yeelan waayeen farxiyo soo macna waxay u yeelanayeen Soomaaliya iyo Puntland iyo Somaliland waxay kamid yihiin Soomaaliya waxay kamid yihiin aye waayahay marka aye jawaabta sug marka Somaliland way diiday way ka dacday Puntland waxay kamid tahay dawladda Soomaaliya ayaga soo doorteen waa la wada ogyahay xildhibaanadooda ku jiro hadii marka muxuu ahay isheeg ay ka dhahayaan anaka madaxweynaha bes marka macquul ma noqonayo waa maamul goboleedkeedu ka ekaanaya bes waayahay marka jawaabtaada sug farxiyo haye jawaabtaada sug marka aye waayahay waa mahadsan tahay cabdiraxmaan oo farxiyo waa mahadsan tahay arintan ummadda Soomaaliyeed aad u hadalhayso oo Somaliland iyo Puntland أنا ضدك أكو خلاف سنة مدحوينها وحلو دورت إنه أديك وقبته مجتمع أوردن وإنه أمضى أوردن وكسبه هدي وقف كم إذا كتره وحيلم تسوق عن تمدك سكوي ولا متاي ودب إسقى حيسته قويا وحو قبي أمضي سقيب كم إذا قبي مدحوينها مدورن قبل جوني لقى مدورن مقال جوني وحمد على أمضى الصومالي ذا مرك وإنه تنها أمضى الصومالي ذا المترو وإنه نقد بريتش إسكو حرس أمضى الصومالي ذا وأنا نقدر فكركي يونيفاي جريني سكين من الصومالي دولار مركز دي بنتلان يا صومالي أي كم مكان تاعي almost وحكم مكان 50% واحد كله صومالي أي كم مكان أرنتا تشوبوينكا وحلاقة يا أبا فرحية إني سن تاريخ الصومالي وركه يعني يدور فيها الصومالي صومرتي أسبابته إن جالسة ماشان دول كان كي مال الصومالي بعلى فليلة الحمد وأنا دول إنه لين هاي نكفر حسنا إنك كي دول إنك كم مقيها دول هذا كلا قدر منه لكن ظروفها كاني in maanta qaarkeen ay door bidaan oo garab saaraan Kenya ama Ethiopia inaga u geynay waayo inagii la rabay inaynu walaalaha u noqono soo jiidano soo dhaweyno u naxariisano hadaynu indhaha faraha ka gelino oo la dagaalano oo cadaawad u muujino oo goob kasta kaga hadalno qofka insaanka xayawaanka ugu liito oo marka la eriyada aakhirka waa soo jeetaa marka arinta jubbooyinka aan waxaan leeyahay bilowgii hore baa si khaldan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ay u galeen ilaa haddana khaladkii bay ku socdaan umalayn mayo dadka deegaankaas jooga inay wadankan Kenya siinayaan oo dad Soomaaliya dawladda ay kamid yihiin waxa ugu filan inay yani baarlamaanka dhowr iyo 40 xildhibaan baa tagay oo Soomaaliya dhan isku dhaf ah ayaa tagay shirka ka qayb galay marka waa qadiyad u baahan in si Soomaalinimo iyo walaaltinimo ah la isugu lagu xalliyo insha Allah assalaamu alaykum ubax oo London naga soo wacaysa ubaxaye السلام عليكم والله لا علينا يا سعيد بويد السلام يا بهري الصومالي ساد كاقادنا رأيي waxaan rabaa inaan ka dhiibto dawladda Soomaaliya ra'yigayga ku aadan dawladda Soomaaliya waxa way walaalo shirar ama London lagu qabto ama banaanka lagu qabto walaalo aniga waxay ila tahay waxa ka fiican oo ka muhiimsan Soomaaliya inay gudaha ka midaysan tahay oo awood ku leedahay inay dadkeedu ay wada socdaan oo madaxweynaha ka dambeeyaan oo Soomaaliya
ay 18 gobol oo Soomaaliya madaxweynuhu uu madaxweyne ka yahay oo dawladda Soomaaliya ay baawar leedahay dawladda Soomaaliya aniga hadda waxay ila tahay waa magac ku yaal adduunkuna waa arkaya meel ay dawladdu ka talisaa ma jiro xamar bay joogtaa oo isku weera xamarna waxaan nabadgelyadeeda mas'uul ka ah ciidamada Umason dawladuna meeshay ka bilaabi lahayd iyo madaxweynuhu dib u heshiisiin iyo iswaraashi iyo maamuladu inay dhismaan iyo kuwii hore maxaa ka qaldan warbalayno saxno waxay istaagtay dagaal iyo taako iyo inay Jubbaland diido iyo inay dastuurkii farafarayso marka aniga walaalo waxa ila fiicnaan lahayd dawlad la ictiraafsan yahay haddaynu yeelanay inay dawladdu ku mashquusho xooga hoose oo wadanka gudihiisa oo ciidamada Soomaaliyeed isku jira la sameeyo oo cadaaladda la falo oo Soomaalida la walaalsiiyo oo Soomaalidu midowdo madaxweynaha iyo dawladduba ay ka fakaraan in gudaha dawlad lagu noqon karo aad iyo aad baad ubax aad iyo aad baad u mahadsantahay ubax aad iyo aad baad u mahadsantahay aad iyo aad baad u mahadsantahay ubax shirka ganacsiga muhiimadiisu maxay tahay oo maalinka laba dhacay Saciid Cabdiraxmaan oo ahmiyad weyn buu leeyahay shirkaas wuxuu ku saabsanaan doonaa dowrka ay dadka qurba joogta ay ka geysan karaan Soomaaliya waxa hadda la ogaaday in maalgelin aad u fara badan dadka qurba joogta ay ku sameeyaan Soomaaliya dadka qurba joogta waa labeentii ummadda waa intii wax baratay waa dad hanti haysta waa dad muddo ay joogeen qurbaha xirfad iyo aragnimo helay waa dad wax badan qaban kara haddii dadka gudaha jooga iyo dadka dibadda jooga ay iskaashadaan aqoontii ay dibadda ka heleen iyo aragnimadii iyo dhaqaalaha yar ay hayaan iyo khayraadka dhulkeena yaal haddii la isugayo wax weyn baa ka soo bixi doona marka ujeedadu waxa weeye qurba joogtu inay gacan ka geystaan arrinta labaad waxa weeye inay noqdaan bridge isku xira shirkadka internationalka ah ee inay maalgelinta ku sameeyaan Soomaaliya iyo wadanka gudihiisa inay isku xiraan marka dad badan baa ka imaan doona Soomaaliya qurba joog badan baa imaan doonta shirkad badan oo Soomaaliyeedna kiistaadi ahaan baa loogu soo bandhigi doonaa إن شاء الله السلام عليكم سعيد وسويدن نقص وعيا السلام عليكم عليكم السلام سعيد سويدن حقك جوكتا سويدن waxaan joogaa Scotland jooga Kansas haye oo salaamaya dhamaantiin adiga xildhibaanka iyo ninkii Araalo haday siyaasadda fiican uga hadlay arrimo badan baa ka soo sheekaysay waxaa kasoo bilowday madaxweynuhu la dhaarinayo lagu dhaarinayo dastuurka qaranka inuu ilaaliyo madaxweynaha ku dhaartay waxaa nasiib darro ah dastuurka qaranka oo federaalka ahaa oo uu ku dhaartay inuu ilaaliyo inuu hareer maray madaxweynaha dhowr meelood buu ku hareer maray waxaa nasiib darro kale ah isagoo Soomaaliya oo madaxweynihii dalka ah shirkii Jubbaland ka socday inuu tagi waayo in haddii wax ka qaldan yihiin dadkiisa intuu dhex fadhiista sixi waayo inuu igad weydiisto Ethiopia iyo Kenya inuu weydiisto halii madax badnay aniga saan rabaan yeelay waa nasiib darro kale waxaa nasiib darro ah madaxweynaha inuu kaligiis tago shirka London oo uu Puntland iyo Galmudug iyo meelihii kale oo isnaa isagoo fariimadan uu ka tago kaligiis meesha tago aniga waxaan malaynayaa shirka London iyo aqoonsiga uu helay waxaa kasoo shaqeeyay nimankii ka horreeyay madaxweyne Sheekh Shariif iyo rag ahaay hawshaas muddo dheer soo gudanayay oo dawladda ku meel gaar ka saaray ayuu aqoonsiga ku helay waxay la halgamay igad iyo dawladaha dariska aan nahay oo meel walba qeydaan u dirayay oo shaqo badan la qabtay oo ciidamadooda keenay intaasba wuu garab marsan yahay madaxweynaha سعيد waxaa jiray baan u malaynayaa Saciido adoo raaliya waxaa jiray heshiis dawladii Sheekh Shariif ay la galeen urur goboleedka IGAD oo ahaa waxa la yiraahdo dib u dejinta ama xasilinta gobolada shabaabka laga xoreeyo sida iyaga ay u qoreen hadalka ay u dhigeen marka asagana madaxweynahana wuxuu ku khasbanaa si taas looga baxo maadaama dawladii hore ay ku meel gaar ahayd asaga dawladiisuna ayaan ku meel gaar ahayn oo shirarka IGAD iyo Ethiopia iyo Kenya ciidamadoodii baana jooga ayagana goobi gacanta ku haya ciidan badan oo uga hortagana ma hayo marka wuu ku khasbanaa inuu hor fariisto taas wax la yaab laa ma uma hor fariisan inuu ciidan weydiisto inuu uma hor fariisan IGAD inuu weydiisto awood wax lagu dhaqaajiyo wuxuu hor fariistay shirka Kismaayo ka socda aniga halii madax badnaysaan rabaan yeero shirka Soomaali baa fadhida
dadkiisiba fadhiya inuu dhex tago oo dhex fadhiisto prime ministerkaa tegey hoteelka uu ku deganaa uu maamulka kula shiray qolada maamulka kula shiray mooyaane ma tegin shirka dadka fadhiya dad soomaaliya ahaayeen odayaashiisay ahaayeen inuu dhex fadhiisto wixii qaldan saxo wixii wanaagsan uu wax ka qabtay aad iyo aad baad Saciid aad iyo aad baad u mahadsantahay Saciid adiga ayuuna ahaa qofkii ugu dambeeyay oo aanu khadka taleefanka iyadoo barnaamijka aad moodo hadda inuu soo dhammaan rabo Saciid ugu dambeyntii maxaa tala ahaan Soomaalida iyo dawladda intaba aad dhihi lahayd cabdiraxmaanow dawladda khaasatan madaxweynaha iyo xildhibaanada waxaan dhihi lahaa ha ka run sheegeen dhaarta ay mareen sidaa hadda uu sheegay Saciid madaxweynuhu wuxuu ku dhaartay inuu daacad u noqonayo dastuurka iyo shuruucda dalka inuu daacad u noqonayo dadka dalka iyo diinta intaba waan ku rajo weynahay inay ka dhawahayd waan ku rajo weynahay inuu weli hilinkii ku taagan yahay waana ugu cudur daari karaa ama waa fahmi karaa waxyaabaha qaarkood laakiin waxaa muhiima inuu ka run sheego xildhibaanada iyo xukuumaddu sidoo kale waa inay ka run sheegaan arrinta loo dhaartay ay yani u dhaarteen oo ah Soomaaliya waxaa ku jirta duruuf qalafsan sida kaliya kaga bixi kartaana maaha in lagu sii daayo madaxweynaha iyo baarlamaanka iyo xukuumadda oo kaliya waa in ummadoo dhan ka wada qayb qaadato soo noolaanshihii qaranka Soomaaliyeed ilaa inaga burburinaya marka madaxdu waa inay ka run sheegaan dhaartii waa inay la yimaadaan barnaamij ummadan badbaadin kara bacdallahi waa inay la yimaadaan dadkuna waxaan aaminsanahay Soomaaliyeed haddii madaxweynuhu ay ka muuqato inuu daacad ka yahay dhaartiisii barnaamijtiisan inuu daacad ka yahay xataa way ugu cudur daarayaan khaladaadka uu sameeyo laakiin Soomaalidu markay wax diidaan oo markay qalooc dareemaan ay diidaan marka madaxweynuhu iyo xukuumaddu ha ka run sheegaan dhaartii ha keeneen barnaamij dadkan duruufta ka saari kara ummadda Soomaaliyeedna meel kastay joogaan gacan ha ka geysteen sidii Soomaaliya ay uga bixi lahayd azmadan oo soo noqon lahayd qarankeena Soomaaliyeed aad iyo aad baad u mahadsantahay daawadayaal waxaa intaas noogu dhan barnaamijka iyagii caawa iyo Somsad kaasoo aad kala socoteen telefishinka Somsad xaruntiisa dhexe ee magaalada Birmingham barnaamijkan waxaa igala qayb qaatay Professor Caroole oo jooga dalka Switzerland magaalada Zurich iyo xildhibaan Saciid Cali Shiro stuudiyaha ila fadhiya waxa idin daadihinayay anigoo Cabdiraxmaan Axmed Guuleed Shiine intii telefonka uu soo galay iyo intii uu u suuroobi waayay intaba waan u mahad celinayaa aniga iyo bahda farsamada Somsad idil ahaanteenba waxaan idinkaga tagaynaa ilaalada alle assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu